saad ogtahay waxaa jiray heshiisyo iyo go'aamo ku aadan nooca doorashada iyo habraacyada waddanka doorasha uga dhacayso. Dabcan waxaana la filayay haddii go'aamadaas iyo heshiisyadaas ay dhaceen waxaa dhacday anigoo taa ka ambaqaadaya saaka 9:00 iyo barkii inaan ka duulay meesha la yidhaahdo Muqdisho aniga oo goob doorashada kursiga aan doonaya inaan ku tartamo uu yaal magaalada Kismaayo. Markii aanu tagnay ku dhowaanay magaalada Kismaayo oo adigu aanaan weli degin ayaa pilotkii wuxuu rakaabkii u sheegay inaan Muqdisho ku noqonayno. Kabacdina waa soo noqonnay. Markaanu degnay Muqdishona waxaa la ii sheegay inaan problemku inuu aniga yahay. Marka waxay iga codsadeen inaan diyaaradda ka dego. Kabacdina sidaasaan diyaaraddii kaga degay. marka waa ay ciideedin celisay marka arrintaasi arrin xoogaa soo jiitantay oo marar badan fariin ay iga soo gaadhay ninka madaxweynaha ka ah dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan lagu leeyahay ninka raaga la yiraahdo Kismaayo ma imaanayo. laakiin anigu waa biciidsanayo mar walba waxaan u arkayay inaysan arrintaasi ahayn arrin qof mas'uul oo noocaas ka imaan karta inaysan ahayn oo aad biciidsanaya aad baan u biciidsanaya. laakiin runtii arrin hadda maaragtay shock igu maaragtay ama marka waxaad leedahay falka celintoodu amarka uu ka yimid madaxweyne Axmed Madoobe ma dad weydiiyana meeshan hadda Kismaayo arrintu markay dhacday ka bacdi dad weydiiyana waaba u sheegay oo wuxuu yiri horeyna fariinta waa u gudbiyay inuusan ninkaasu imaan karin maxaan ku dhahdaa Kismaayo. waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego anigu reerkaygu iyo carruurtayda magaalada Kismaayo degan yihiin ma yihiin oo ama meelahan uu ka shaqeeyo oo safar ku tagaya meesha maaragtay ma aanan ahayn nin degan baan ahaayo reerkiisa iyo ciyaalkiisu degan yihiin. dadka markay la hadleen weydiiyeen see wax u dhaceen wuxuu yiri anigaa celiyay horeyna waa fariinta waa u gaadsiiyay ninkaas uu imaan karin. marka maxaad rumaysantahay inay sababtu tahay? sababtu wax kale ma aha. sababtu waxa weeye inaan aniga iyo asagu aanu aragti siyaasadeed oo kala duwan aan kala qabno waa intaa weeye. waxaa iga muuqata dulqaad yaraan siyaasadeed inay uun tahay. markii aad la taliyaha u ahayd madaxweyne Axmed Madoobe laftiinu soo sidaa ma aydan samayn jirin oo wixii aad isku raacsanaydeen maanta adiga kuma ay haleelin. mar walba raalli kama ahayn. dabcan intaan la taliyaha u ahaa arrimahaas iyo weliba kuwa ka xun waa dhaceen. laakiin ra'yi ahaan mar walba anigu waa kaga duwanaa waana midda sababtay ugu dambayntii inaan go'aan qaato aan kaga duwanahay ra'yi ahaan sida wax u wado. sababtay baa taa ahayd ma aanan marna raalli ka ahayn in dad la masaafuriyo in dad la celiyo marna raalli kama ahayn. saad ogtahay waxaa jiray heshiisyo iyo go'aamo ku aadan nooca doorashada iyo habraacyada waddanka doorasha uga dhacayso. dabcan waxaana la filayay haddii go'aamadaas iyo heshiisyadaas ay dhaceen waxaa dhacday anigoo taa ka ambaqaadaya saaka 9:00 iyo barkii inaan ka duulay meesha la yidhaahdo Muqdisho aniga oo goob doorashada kursiga aan doonaya inaan ku tartamo uu yaal magaalada Kismaayo. markii aanu tagnay ku dhowaanay magaalada Kismaayo oo adigu aanaan weli degin ayaa pilotkii wuxuu rakaabkii u sheegay inaan Muqdisho ku noqonayno. kabacdina waa soo noqonnay. markaanu degnay Muqdishona waxaa la ii sheegay inaan problemku inuu aniga yahay. marka waxay iga codsadeen inaan diyaaradda ka dego. kabacdina sidaasaan diyaaraddii kaga degay. marka waa ay ciideedin celisay marka arrintaasi arrin xoogaa soo jiitantay oo marar badan fariin ay iga soo gaadhay ninka madaxweynaha ka ah dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan lagu leeyahay ninka raaga la yiraahdo Kismaayo ma imaanayo. laakiin anigu waa biciidsanayo mar walba waxaan u arkayay inaysan arrintaasi ahayn arrin qof mas'uul oo noocaas ka imaan karta inaysan ahayn oo aad biciidsanaya aad baan u biciidsanaya. laakiin runtii arrin hadda maaragtay shock igu maaragtay ama marka waxaad leedahay falka celintoodu amarka uu ka yimid madaxweyne Axmed Madoobe ma dad weydiiyana meeshan hadda Kismaayo arrintu markay dhacday ka bacdi dad weydiiyana waaba u sheegay oo wuxuu yiri horeyna fariinta waa u gudbiyay inuusan ninkaasu imaan karin maxaan ku dhahdaa Kismaayo. waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego anigu reerkaygu iyo carruurtayda
caruurtayda magaalada Kismaayo degan yihiin ma yihiin oo ama meelahan uu ka shaqeeyo oo safar ku tagaya meesha maaragtay ma aanan ahayn nin degan baan ahaayo reerkiisa iyo ciyaalkiisu degan yihiin dadka markay la hadleen weydiiyeen see wax u dhaceen wuxuu yidhi anigaa celiyey horeyna waa fariintaa waa u gaadhsiiyey ninkaas uusan imaan karin marka maxaad rumaysantahay inay sababtu tahay sababtu wax kale ma aha sababtu waxa weeye inaan aniga iyo isagu aanu aragti siyaasadeed oo kala duwan aan kala qabno waa intaa weeye waxaa iga muuqata dulqaad yaraan siyaasadeed inay un tahay markii aad la taliyaha u ahayd madaxweyne axmed madoobe laftiinu sow sidaa ma aydan samayn jirin oo wixii aad isku raacsanaydeen maanta adiga kuma ay haleelin mar walba raalli kama ahayn dabcan intaan la taliyaha u ahaa arrimahaas iyo weliba kuwa ka xun waa dhaceen laakiin ra'yi ahaan mar walba anigu waa kaga duwanaa waana midda sababtay ugu dambayntii inaan go'aan qaato aan kaga duwanahay ra'yi ahaan sida wax u wado sababtay baa taa ahayd ma aanan marna raalli ka ahayn in dad la masaafuriyo in dad la celiyo marna raalli kama ahayn saad og tahay waxaa jiray heshiisyo iyo go'aamo ku aadan nooca doorashada iyo habraacyada waddanka doorasha uga dhacayso dabcan waxaana la filayey haddii go'aamadaas iyo heshiisyadaas ay dhaceen waxaa dhacday anigoo taa ka ambaqaadaya saaka 9:00 iyo barkii inaan ka duulay meesha la yidhaahdo Muqdisho aniga oo goob doorashada kursiga aan doonayay inaan ku tartamo uu yaal magaalada Kismaayo markii aanu tagnay ku dhawaanay magaalada Kismaayo oo adigu aanan wali degin ayaa pilotkii wuxuu rakaabkii u sheegay inaan Muqdisho ku noqonayno ka bacdina waa soo noqonay markaanu degnay Muqdishona waxaa la ii sheegay inaan problemku inuu aniga yahay marka waxay iga codsadeen inaan diyaaradda ka dago ka bacdina sidaasaan diyaaradii kaga degay marka waa ay ciideedin celisay marka arrintaasi arrin xoogaa soo jiitantay oo marar badan fariin ay iga soo gaadhay ninka madaxweynaha ka dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan lagu leeyahay ninka raaga la yiraahdo Kismaayo ma imaanayo laakiin anigu waa biciidsanayo mar walba waxaan u arkayay inaysan arrintaasi ahayn arrin qof mas'uul oo noocaas ka imaan karta inaysan ahayn oo aad biciidsanaya aad baan u biciidsanayay laakiin runtii arrin hadda maaragtay shock igu maaragtay ama marka waxaad leedahay falka celintoodu amarka uu ka yimid madaxweyne Axmed Madoobe ma dad weydiiyana meeshan hadda Kismaayo arrintu markay dhacday ka bacdi dad weydiiyana waaba u sheegay oo wuxuu yiri horeyna fariinta waa u gudbiyay inuusan ninkaasu imaan karin maxaan ku dhahdaa Kismaayo waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego anigu reerkaygu iyo caruurtayda magaalada Kismaayo degan yihiin ma yihiin oo ama meelahan uu ka shaqeeyo oo safar ku tagaya meesha maaragtay ma aanan ahayn nin degan baan ahaayo reerkiisa iyo ciyaalkiisu degan yihiin dadka markay la hadleen weydiiyeen see wax u dhaceen wuxuu yidhi anigaa celiyey horeyna waa fariintaa waa u gaadhsiiyey ninkaas uusan imaan karin marka maxaad rumaysantahay inay sababtu tahay sababtu wax kale ma aha sababtu waxa weeye inaan aniga iyo isagu aanu aragti siyaasadeed oo kala duwan aan kala qabno waa intaa weeye waxaa iga muuqata dulqaad yaraan siyaasadeed inay un tahay markii aad la taliyaha u ahayd madaxweyne Axmed Madoobe laftiinu sow sidaa ma aydan samayn jirin oo wixii aad isku raacsanaydeen maanta adiga kuma ay haleelin mar walba raalli kama ahayn dabcan intaan la taliyaha u ahaa arrimahaas iyo weliba kuwa ka xun waa dhaceen laakiin ra'yi ahaan mar walba anigu waa kaga duwanaa waana midda sababtay ugu dambayntii inaan go'aan qaato aan kaga duwanahay ra'yi ahaan sida wax u wado sababtay baa taa ahayd ma aanan marna raalli ka ahayn in dad la masaafuriyo in dad la celiyo marna raalli kama ahayn